sideedan ruux oo ahaa shaqaale caafimaada oo ka howlgelayay xarun MCH ah oo ku taalla deegaanka Gololey oo ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dilwadareedkan lagu geystay duleedka deegaankaasi. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa cambaareeyay afduubkii iyo dilkii lagula kacay ilaa 8 qof oo ahaa howlwadeenno caafimaad oo ka shaqeynaya xarun caafimaad oo ku tiilay magaalada Balcad. Afduubka raggan ayaa dhacay Arbacadii saacad kadib markii uu halkaasi ka dhacay qarax lala eegtay militariga Soomaaliya. Weli ma cadda cidda laysay raggaasi. Sidee wax u dhaceen? duhurnimadii Arbacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii rag hubeysan ay yimaadeen xarunta caafimaad ee hay'adda Samsom Foundation ay ku leedahay deegaanka Gololey ee duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Raggaasi ayaa markii dambe xaruntaasi ka kaxaystay 7 ka mid ah howlwadeennada caafimaad oo xaruntaasi ka shaqeynayay iyo qof ka mid ah dadka deegaankaas sida ay goobjoogayaal sheegeen. Maalin kadib ayaa meydadka 8daasi qof laga helay duleedka deegaanka laga qafaashay. Cumar Jaamac, agaasimaha guud ee hay'addaasi Samsom Foundation, ayaa sheegay in shaqaalahaasi laga qafaashay xarunta ay ahaayeen wiilal dhalinyaro ah oo ka howlgelayay xaruntaasi. Wiilashaasi waxay ahaayeen shaqaalayaal caafimaad oo ka shaqeynayay xarunta una shaqeynayay hay'adda. Dhibka markii uu dhacayayna waxa ay ku sugnaayeen xarunta oo halka laga kaxaystay. Ciidan labisan oo wajigu u xiran yahay si aan loo garan ayaa xarunta soo galay dabadeedna kaxaystay, ayuu yiri Cumar. Sidoo kale Cumar waxa uu sheegay in ciidamadu ay handadeen dumarkii ku sugnaa xarunta rag iyo dumarba waa ay ka shaqeynayeen. Raggii dhalinyarada ahaa ayay kaxaysteen, dumarkiina taleefanada ayay ka sii qaateen, waa ayna la tageen. Dabeetana qof kale oo deegaanka ah ayay horay u sii kaxaysteen, lamana garanayo meeshii ay la aadeen. Ugu dambeyn waxaa la helay meydka dhalinyarada dhammaan oo la dilay oo ay ka muuqato rasaas. Yaa dilay raggaasi? Maxaase loo dilay? Lama oga weli. meydadka dhalinyaradaasi ayaa habeen hore la geeyay magaalada Muqdisho si halkaasi loogu tuso ciidamada dambi baarista. Waxaase markii dambe lagu celiyay deegaanka Balcad halkaas oo lagu aasay. Dad ku sugnaa xarunta hay'addaani markii dhalinyarada la qafaalanayay ayaa sheegay in 5 nin oo hubeysan oo 3 ka mid ah ay xiran yihiin dareeska ciidamada dawladda Soomaaliya ay xarunta soo galeen ayna ka soo galeen qaybta dambe. Raggan ayaa markii ay xarunta soo galayeen la kulmay dhalinyaradaasi oo qadeynayay, waxa ayna u sheegeen in ay yihiin amiirada cusub ee Al-Shabaab ee deegaankaasi loo soo magacaabay. Raggaasi dableyda ah ayaa la ogaaday in markiiba ay indhaha u xireen dhalinyaradaasi ka hor inta aysan aadin dhanka gabdho iyagana xaruntaasi ka shaqeynayay. Waxay gabdhahaasi weydiiyeen magacyada 2 qof oo ay wateen oo mid ka mid ah uu ahaa darawal kaxeeya baabuurta lagu qaado dadka xanuunsan ayna leedahay xarunta. handadaad kadib raggaasi waxa ay horay u sii kaxaysteen dhalinyaradii 7 ahayd iyo nin ka tirsan dadka deegaanka, kuwaas oo indhaha u duuban yihiin isla markaana qaarkood ay isku xirxiran yihiin. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay dableydaasi markii dambe la aadeen dhanka wadada Jowhar, iyagoo sida la sheegay markii dambe ku qaaday baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano Hoomey ama Caasi. Saacado kadib waxaa la maqlay dhawaqa rasaas aan horay loo maqli jirin, taas oo la rumaysan yahay in ay ahayd tii lagu dilay 8 qof ee rayidka ah. Dhacdadani ayaa noqotay mid aad looga hadalhayo gudaha iyo dibadda Soomaaliya, waxaana dadku isweydiinayaan ujeedka loo bartilmaameedsaday shaqaale caafimaad xilli haatan dunidu farabaan uu ku hayo cudurka COVID-19 ama coronavirus. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya wakiilka uga ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa si xoog leh u cambaareeyay dilka 8daasi qof. Waxa uu soo jeediyay in baaritaan hufan lagu sameeyo dhacdadan lagu dilay dhalinyarada. Marnaba lama aqbali karo in la weeraro shaqaale caafimaad, taas oo xadgudub ku ah xeerarka arrimaha bini'aadanimada. Qaramada midoobay waxa ay sidoo kale sheegtay in dilka howlwadeennada caafimaad uu imaanayo xilli dawladda Soomaaliya ay dagaal ba'an kula jirto xakamaynta cudurkani safarka ah ee coronavirus. Wax ka qabashada daadadka iyo saameynta uu reebay ayaxa dawladda iyo shabaab ma cadda cidda afduubatay iyo cidda ka dambeysay dilka dhalinyaradan, balse dadka qaar ayaa arrintani ku eedeeyay ciidamada dawladda. Hase yeeshee militariga Soomaaliya ayaa eedaasi ku gacan sayray, waxaana maamulka gobolkaasi uu dhacdadaani ku eedeeyay ururka Al-Shabaab. Dhanka kale warbaahinta u janjeerta dhanka Al-Shabaab ayaa dhacdadaasi ku eedeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya oo ku baaqday baaritaan degdeg ah ayaan weli sheegin cidda ay ku tuhunsan tahay dilalkaasi. waxaan dhammaan taxsuu dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen oo aniga aan hadda idila hadlayo ka mid ahay, wiilashii dhalinyarada ahay, aqoon-yahanada ahay oo dhaqaatiirta ahay, ka shaqeynayay goobta caafimaad ee ku taalo Gololey, u adeegaya dadkoodii iyo shacabkoodii, ayagu u adeegaya ku naf waayey, dhibbanana u noqday. arrintaas darteed waxaan leenahay ilaahay jannatu firdaws ha geeyo. waxaan joognaa hadda isbitaal Madiino, waxaa la keenay meydkoodii, procedure-kii loogu talagalay waa la marsiiyey,
si arrintaani loo baaro. waxaan u ballan qaadaa dadka shacabka ehelada iyo qaraabada oo annaga aan ka mid nahay inaan arrintaana la isaga daba harin, baaritaan saxa lagu sameeyo, wax alle iyo wixii ka imaadane aan mataqaanaa oo maro qof kasta ciqaabta uu leeyahay iyo cawaaqibteedana oo gadaal u dhidhansho. maalintana waa la baaraa, birina aakhira sugayso, maalinta qiyaamana waxaa sugayo xisaabteeda. maxay ka shaqayn jireen ragga la dilay? 7 ka mid ah 8 qof ee la dilay waxa ay ahaayeen kalkaaliyayaal caafimaad oo ka howlgeli jiray xarun caafimaad oo ay maamusho hay'adda Samsam Foundation. magacyada ragga la dilayna waxa ay kala ahaayeen Maxamed Cumar Boore, Cumar Xuuti Maxamuud, Nuur Xaaji Gaas, Cabdirasaaq Cabdullaahi Xuseen, Cabdicasiis Cabdulqaadir Cabdulle, Cali Axmed Cali, Abuukar Muuse Maaxi iyo Yuusuf Ayuub Cabdullaahi. xarunta caafimaad ay ka shaqaynayeen ayaa bixinaysa adeegyo caafimaad sida hooyada iyo dhallaanka, sida inay haweenka ka umuliyaan, daawo iyo nafaqayn ay ka heli jireen dhallaanka. waxay sidoo kale xaruntan caafimaad adeeg bilaash ah siin jirtay dadka waaweyn ee bukaan socodka ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan caawa waxaan uga hadlayaa haddii alla yidhaahdo nimanka walaalahayna oo dhibaatadu soo gaartay oo 8 nin laga xasuuqay gololey daa'uud, oo haddii alla yidhaahdo qaraabada ayaan u tacsiihayaa awalan marka ugu horreyso. dhibaatadaasan ka wada naxnay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo joogta gobolka Banaadir amba gobolka Hirshabeelle joogta, intaba waa ka naxnay. marka waxaana codsahaynaa dowladda haddii la yidhaahdo meesha la yidhaahdo waxuu ahay gololeyda waxaa lagu dilay haddii ala diiq dooraa baabuur ku dardara, haddii la yidhahdo isla maalintaasaa baabuurka cidda laheed la ogaadaa. marka 8 nin oo dhaqaatiira oo haddii ala yidhahdo dadka muslimiinta u gargaaraysa dhibkan maanta jirto, weliba nimanka la yidhaahdo waxaa dhaqaatiirtu dadka waa ka qaalisan tahay. in haddii ala yidhahdo meyd hebel inta laga wato meeshii meydkooda lasoo keena meeshii wax dhici kara ma ahan. marka waxaan ka codsanayaa dowladda amba Hirshabeelle dowladeed ha noqoto amba dowladda dhex ha noqoto, ciddii arrintaas ka dambaysa si degdeg la xamaasadaad kacsan waana dejiyowhaynaa bacdamaa imaamka cidda aan ahay oo dhibaato xamaasada kacsan aan dejiyowhayo, inaan iskaashano xamaasadaas la dejiyo oo si degdega inta lagu baaro ciddii arrintaas ka dambaysa lasoo saaro ayaan awalan horta marka dowladda ka codsanayaa. cidda madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada, waxuu ahay inta taliyayaasha ciidamada intaasoo dhan waa ka codsanaynaa. maxaa jiro dhibku hadduu sii fasaso cid jooji karta ma leh.